wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa caawa safar ku tagay waddanka Mareykanka isagoo ka tagay magaalada Washington. Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa la filayaa in madaxweyne Trump la kulmo isla markaana uu kala hadlo qadiyadda heshiiska aqoonsiga Soomaaliland ee shalay dhex maray iyo sidoo kale maalinta biri oo lagu wado golaha ammaanka qaramada midoobay in la horgeeyo arrin ku saabsan mooshin Soomaaliland ee aqoonsiga Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa qadiyadda aqoonsiga Soomaaliland si weyn ugu ololeynaya isla markaana miiska maalinta biri ah soo saari doonta Israa'iil iyo xulufadeedu in aqoonsiga Soomaaliland la meel mariyo ka hor inta aan u bilaabmin kulanka qaramada midoobay ee lagu wado maalinta biri toole inuu dhaco. Waxaa caawa saacadaha dambe kulan ku yeelan doona magaalada Washington ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo safar ku tagay goordhaweyd iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ayaa ah saaxiibo isku dhow isla markaana isku xulufo siyaasadeed ah kuwaas oo dhinaca badda u wada rida. Lama oga go'aanka ka hor ay soo saari doonaan iyo ololaha qadiyadda meelmarinta aqoonsiga Soomaaliland ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu horgeyn doono golaha ammaanka in uu ku raaci doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Hase yeeshee waxaa jira baaqiyo tilmaamaya ama dowladtusyo siyaasadeed iyo fariimo diblomaasiyadeed oo sanadihii la soo dhaafay ilaa waqti xaadirkan socda oo dowladda Mareykanku ay ku taageerayso qadiyadda meelmarinta aqoonsiga Soomaaliland walow aanu meel fagaara ah ka sheegin isla markaana aanu si rasmi ah ugu dhawaaqin. Si kastaba ha ahaatee maalinta shalay ayay ahayd laba maalmood ka hor ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ay qalinka ku wada duugeen in ay Israa'iil u aqoonsato dal madax bannaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo caalami ah oo dalalka Israa'iil la xulufada ah ay ku doonayaan in iyaguna ku aqoonsadaan Soomaaliland maalmaha fooda ay nagu soo haysa oo ay u dhegtaagayaan golaha ammaanka doodda ka dhici doonta iyo meelmarinta hindisahaas aqoonsiga Soomaaliland. Ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV. ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb. follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share tayo kuman kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsan tahay sida aad noogu xidhan tahay.